culamadii hore waxay oran jireen waxaa la yidhi ninkii la oran jiray cabdullaahi ibni mubaarak radia allahu canhu waraximah oo arday u ahaan jiray imaam abaa xaniifa ayaa waa taqaanaa dhalinyaradu way iskala degdegaano su-aal bay u dhiibeen ka jawaab bay dhahdeen abu xaniifana waa ag fadhiya cabdullaahi ibni mubaarak wuxuu uga jawaabay wuxuu yidhi nuhiina an natakallama cinda akaabirina nuhiina an natakalam cinda akaabirina marka culammadu ay joogaan inaanu hadallana loma ogolaa buu yidhi ana tii baan ku celinaya waxaan leeyahay markuu sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun uu joogo dee siciid raaga meel uu ka hadlo ma joogo yani dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa sheekh ima maqlay waan ogi microfoonku ka xidhan yahay xaggiisa marka haddii aan iska yaro dhurmo waxba kama qabayan u malaynay dee ma oga idinkuna ha u sheegina culimo badan baan la dhoofay nasal allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay ka abaalmariye culimo fara badan baan la dhoofay culimo fara badan baanu meel iskugu nimi culimo fara badan baan dhegaystay maa ra'at caynaaya mithla sheekh mustafa ilaah barakeeya qof la mida maan arag mustafa sheekh mustafa haruun waayo maaha caalim oo qura maaha nin intuu kitaabkan riyaad saalixiin noo turjumayo kelmadii noo saaraya maaha nin intuu soo qaato kitaab ibn kathiir tafsiirta kelmadii noo saaraya waa qof mufakira 80skii 90skii markii uu ka sheekeyn jiray maanta laga yaaba inaynu wax ka siila taataabano marka ninkaasaynu suganaa biidni illaahi subxaanahu wa tacaala laakiin waxaan ku dadaalayaa bal maanta khudbad yara meel kaga birifsiiyey inaan idiin sheego wixii aan ku idhi waxaan ku hadlayaa af carabeed iyo af ingiriis dadka meesha jooganada siba indhaha igu soo eegayeen waxaan u malayn labada midna may fahmin carabigana may fahmin soomaaligana may fahmin yani ingiriisigana may fahmin waxaan turjumay maanta xadiid وأنظر حديث كاسنا هو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينكفى إلى سننا عبد الله بن عمر وحرنين بالنبي قويمي صلى الله عليه وسلم ننكي لبس سؤال بويدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لبس سؤال أي ويدي سؤال شوه الرسول ننكني ونبي قويدي وحي أهيد يا رسول الله من أحب الناس إلى الله تذكر إلهي تعلي هاي يتلما لكنك صحابي سبحان الله مو ولو تذكر العقد له عنك العقد أسمى بالنبي محمد سرت إيدي هدينا دوني سياسي النقطة عنك يبالي أريد كرا وعدك الله يقعدين كرا هدينا دوني نين لا يقانون معروفة طريقة بان أمرا وحولي النبي محمد واحد يتلمامته تذكر إلهي تعلي عنك يبيه ninka saxaabiga radiyallahu anhu wuxuu doonayay inuu ilaahay jeclaado amalkii laga doonayay inuu la yimaado ninkaas doonaya saxaabada nabigana sallallahu alayhi wa sallam hamigoodu wuxuu al-aakhirah sidana adduun mu hayn xaaladun mu hayn saxaabi walba wuxuu ku dadaali jiray caynkeebuu u noqda min ahli al-firdaws al-a'la caynkeebuu nabiga ugu dhawaada caynkeebuu min ahli al-janna u noqda waxaa la soo wariyay nin yaroo dhalinyaro oo saxaabiya oo laga yaabaa nin ka yar ag fadhiya inuu leegiyo koraya ayaa nabiga ayuu xuriyay kunta abitu cinda nabiyi sallallahu alayhi wa sallam nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaan ag seexan jiray buu yidhi faatihi biwuduu waysada markuu nabigu wayso doonayay usoo qaadi jiray waysada nabiguna buu ahaa nin kariim u ahaan jiray sallallahu alayhi wa sallam qofka macruufka u sameeya wuxuu jeclay inuu abaal gudo yarkii wuxuu ku yidhi sal ma shit iweydii waxaad ka doonaysid qaala sal ma bidaalak waxaad doontid iweydii wani dhalinyaro ah oo aan guursan oo aan xoolo lahayn oo aan cilmi lahayn oo aan caruur lahayn yarkii baa yaa rasuul allah saddex shay bal isi aan ka soo fakiray mas'alada wuu soo noqday yarkii qaala yaa rasuul allah maxay yarkaas u maray soo nabiga weydiisay wuxuu yidhi yaa rasuul allah sallallahu alayhi wa sallam
أسألك مرافقتك في الجنة إن جنة صاحبنا أيام دون يا رسول الله وفر سيرك سبحان الله قبل إيقوري مو أرنين حول عنك مهلا مو أرنين وحول يا رسول الله أسألك وحنك ويدي سنية إن الجنة أين صاحبك النقطة مرافقتك في الجنة إن الجنة يذكر عنه وجنة هو بقول درجة دوت والله لك لا بيريا ونبى هالك أو بيريا نبى هالك أو بيريا نبى الفردوس الأعلى لجينيا نبى درك كسو قليا نبى عذابتك كسو بحيا سو لعبتك كسو على يا رسول الله جنة أنكو أكفر اسم إن صاحب كرون نقض جنة أن شار كرون نقض أيان دوني قال أو غير ذلك أنت ويحكي مية دونيسا يعني حول ما دونيسا أدونك ما دوني وحكي أدون مرة وحنا نقول النبي كيري صلى الله عليه وسلم ويقول أنت ويديسون كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تا ويديسون وحول يا رسول الله عيد إيمي صوت المامنة تاسم كويديسانية قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود وانكود عين إلهي وانكود دين إياه يولد دال إن السجود أبد السد إن السجود أبد السد صحابة ومن لمده نبي يقول يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله بدك إلهي أبورتي إلهي وجعليه إلهي وجعليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم نك قريش تكيمي نك بني هاشمة نك من أهل المكة نك من أهل المدينة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي أرقينا يقرح دينا يكلر كينا من ندن كما نقول إلهي وحدن كليها وحوضناها كوهيسان يعملك خيره بلبان هاي يوم القيامة إنك لصار ميسو والنبي صلى الله عليه وسلم وحيدي وقرآن كش وسنة كش شيء ونبي نوشي يقول من بطأ به أو أبطأ به عمله لم يسرع به النسب وإنك عمل كيس وحيبة يوم القيامة والأرض يسراتك والله قتل الله بسنية رقبة سيدة الله ودافية رقبة سيدة الضبيشة ودافية رقبة سيدة فردها ودافية رقبة سيدة أورنك أدنك وديرية ودافية قاربة بيرك كسعونية قاربة قرقورانية قاربة مركة تلابان عذابتي أجحك حجنسة وحيد النبي صلى الله عليه وسلم وأنك عمل كيس ومالك عصلي ورقاسين ومو ريحي ويا ديرين بالبان هاي مرة فينا سبل السرات صلى الله عليه وسلم مركة مو أورانين هدي قريش تهاي dadka ilaahay ku jeclaanaya oo dadka ilaahay jecel yahay ku jirta waayo saxaabada nabiga damcay inay taa ka faa'iideystaan oo nabiga uu yimaadeen sallallahu alayhi wa sallam waxay ku yiraahdeen ya rasuul allah ayu nnaasi akram ya dadka ugu fadli badan wuxuu atqahum lillah ka ilaahay ka cabsanaya waxay yiraahdeen ma an hada nas'aluk taakum an kaman waraysanina tii kale nooga waran marka ciriq bay doonayaan reer hebel صريح بالمعنى وبريه بذاك وصفر لي ما شاء الله تبارك الله وحدوني المقلان غير هبل ما كان يقول حجدي هدي عين كاتاي وليس أتقاكم الديدين إذا نك أقول شرفت البضن والنبي يوسف والنبي نبي بعد علي وهي يعقوب نبي بقى أبوه وهي إسحاق نبي بقى أبوه لباطوه وإبراهيم قالوا ما عن هذا الناس أنا كما ورثنا لمدونينه نبي يقول إذن عن معادن العرب تسألونني ورم واحد ورثنا سان قيسسك يا راسسك عرفت حابنا يا رسول الله كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه كوي وقت جي جاهلية وفضل بدنا أيام ما تقول فضل بدنا هذا الدين تدبرته marka waxa weeye qofkii diintiisa barta ayuma fadli leh nabiga ninka su'aal buu nabiga la weydiiyay su'aashi waxa ya rasuul أي الناس أحب إلى الله نبي وحي صلى الله عليه وسلم وحي أنفعهم للناس قفك ضدك أقوم منفعة بدن إنك أفير صدق كينا سياسي كينا ملك سوتشيدا كينا وح أرورنا وح والبوح نكسرنا غير هبل تولد يرد أن كسوتشيدا يلا وصليا
haddii xoolo ururinaysid waxaad u ururinaysaa malcaamadoo laga furayo tuuladiinii haddii waddo aad wax kaga darsanaysid waddo tuuladiinii sii marta ayaad wax ku darsanaysaa mid kale oo dhinaca kale u baxaysa isma geenaad leedahay manaka taa dhinac isku dhinacba ah nebigu laakiin wuxuu yidhi dadku ilaahay jecelya waa anfacahum linnaas dadka ugu manfacada badan dhan kama gelayo qofku anfacaya ma falastiiniba ma ciraaqiba ma suuriba ma soomaaliba ma inaadeerkiiba dan kama leh wuxuun buu doonaya inuu dadka anfaco lidalika nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam axabu nnaasi ila allahi anfacahum linnaas su-aal baan idin weydiiya ninkan saxaabigii muxuu ku doonaya ama ugu doodaya maxabada ilaahi subxaanahu wa tacaala waayo qofku markuu ilaahay hadduu ku jeclaado laba arrimood baad horta ka faa'iidaysanaysaa kow ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa iyo wuxuu abuurtay oo dhan ayuu odhanaya addoonkaa waan jeclaaday idinkuna jeclaada subxaana allah waayo xadiiska fii saxiixi muslim waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey inuu yidhi ina allaha idaa axaba cabdan hadduu ilaahay addoon uu jeclaado wuxuu u yeedhaa jibriil markaasuu dhaha yaa jibriil inii uxibu cabdii fulaanan fa axiba addoonkayga hebel baan jecelahaya adna jeclow jibriilo fa yuxiba jibriilo wuu jeclaanayaa markaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu jibriilu farintaa faro ayuu jibriil soo baxaya wuxuu odhanayaa wixii cirka iyo dhulka ku noolaayoo dhan buu odhanayaa ina allaha qad axaba cabdahu fulaan addoonkiisii hebel buu jeclaadee waan idinkuna jeclaada shimbiraha cirka duulaya kalluunka iyo nibiriga badda dabaalanaya quraanjada godkeeda galaysa xayawaanka adduunkaa dul maraya kulligood iyo malaa'igtu ilaahay samaysay way ku jeclaanayaan waayo ilaahay baa amar soo dejiyey kulluhum way ku jeclaanayaan hadduu ilaahay ku jecel yahay waata ugu horeysa waxaan anigu intaasoo dhan u arka wax ka karaamo badan wax ka sharaf badan oo ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta malaga ugu sarreeyo intuu u yeedho fowqa 7 samaawaat ayadoo fowqa alcarshi ah ayuu odhanayaa addoonkaygii maxamed addoonkaygii mustafa addoonkaygii siciid baan jecelahay war adna jibriiloo jeclow calayhi salaam wallaahi haddii maanta la idhahdo farmaajo ama muuse ama madaxweyne hebel ama waddanka ayaa maanta ku xusay oo magacaaga soo qaaday ama la idhahdo jariiradii hebel ama telefisyonkii universal ama hon cable ayaa maanta magacaaga soo qaaday waad farxaysaa soo maha waad ku farxaysaa oo dadkaad clipka waad u wada daadinaysaa wada tuuraysaa war maanta universal baan kasoo baxay bal eega adigoo geysanaa dheer baa lagu sawiraya halkaas ka baxaysa wax aad ka faa'iiday if iyo aakhira ma jirayo laakiin ka waran markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta malaga ugu sarreeya u yeedho uu ku yidhaahdo hebel baan jeclaaday adiguna jeclow miyana sharaf ahayn miyana karamad ahayn صحيح البخاري مسلم وحو لغا سو وريه من حديث أنس إنه النبي صلى الله عليه وسلم انت صلاة كده صلاة الصبح ما صلاة الفجر أي النبي سو تشيستي فقال أين أبي ورنيك أبي بن كعب لورنشري مه ما كاسول لبيك يا رسول الله في رواية كلا لبيك يا رسول ويكن ما كاسول إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولله وحي إصاء أمر إن كوكو أخري كوكو طول أخري سورة البينة سبحان الله ننكي صحابك ياسكن نحي انت النبي سورة دي أخري يقول يا رسول الله وسماني الله إلهي مقعابا إلهي عرك أي قصر مقعابا في رواية الطبراني وحي كموسو مقعابين وقوله مقعاga iyo nasabkaaga waa uu soo sheegay buu Nabiga sallallahu alayhi wasallam
markaasuu ninkaasi ilmeeyey waa wuxuu arkay asagoo cabdi daliil ah oo addoon ah oo caasi ah oo dambiile ah oo aan u qalmin ayuu ilaahay sharfay markaasuu fawqa 7 samaawaat kaasoo hadlay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaasuu yidhi addoonkaygi hebel igu akhri suurat albayina lam yakun aladiina kafaruu min ahli alkitaab muxuu saxaabigaasi la ooyey lijalaalati almakaan haybadu meeshu ay leedahay qiimaha ay leedahay ayuu arkay